السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتبعني سودويني يا دمانتين بمركزتا يمر وبعدين دعالة إذا كجسوجنتين سومال هاداتين إن برنامج كسي شير قرية سي قيبية جروب ده كسي تورا مر وبكسي تورا إن شاء الله إن وبرنامج كيني حد وبينوسو جيشري كالية دنت أمود الصومالية هذا يمدنمتهاي إيه هذا يدنا كلتهاي بقى marka barnaamijkan wuxuu u badan yahay badana xoog saarnaa dadka ummadda inta midnimada doonaysa ee midnimada raadinaysa inaan ku xog wareysano oo aan ku ogaano waxa ay midnimo u doonayaan midnimo faa'iidada ay leedahay go'aanka waxa ay u gaadheen iyo su'aalo kale fara badan oo aan mataqaanaa isleenahay halkan ummadda Soomaaliyeed u baahan tahay in lagu soo bandhigo marka fadlan wax kale aan idin weydiisanayna ma jirto waxa weeyaan in barnaamijka sii share gareysaan sii qaybisaan gruubada ku sii tuurtaan mar walba geysaan barnaamijkana wuu iska ooleeyaa mar walba Facebook laga saarayo mana aha barnaamij aanu YouTube iyo meel kale ku shubino lacag lagu raadinayo maaha waa barnaamij aanu kaga hadlayno danta ummadda Soomaaliyeed iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed aanu kaga hadlayno kuna raadinayno insha Allah xaqiiqadu waxay tahay iyo waxa dantu inagu jirto iyo waxaan rabno marka barnaamijkan waxaan ku soo casumi doonaa insha Allah week walba qof week waxaan ku soo casumay Maxamed Baashi السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد باشي aad baan ku soo dhaweynayaa barnaamijkiisa toos ayaynu live ugu jirnaa adiguna sii share garay Facebook-aaga ku sii tuur insha Allah waraysigeena waynu bilaabaneynaa soo dhawo koobiyaan soo qaad aad baan u dhawahay kaltuun waad mahadsan tahay waxba qabiyayga maaha aniguna waan salaamayaa inta hawada inagala socota sax inta taageersan midnimo mar kale iyo inta ka soo horjeeda labadaba sax wasalaam halka waan ka salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan gartay si fiican aad iyo aad annaguna aad iyo aad baan Maxamed Baashi ku salaamayna aad iyo aadna waan ku soo dhaweynaynaa waxaan maanta jeclaystay maanta inaan adiga waraysiga ka qaado barnaamijkan midnimo iyo mar kale horta runtii marka ugu horeysa dhamaantiin baad baan salaamaya barnaamijka si share gareeya Maxamed Baashina aad iyo aad baan idin wada salaamaya dhamaantiin baan intaan u gudagalin su'aalaha aan doonay Maxamed Baashi inaan caawa halka ku weydiiyo ama maanta inuu taagno wala caawa taagnin waxaan afartii weer taagan oo leeyahay meelaha qaar waa habeen sida Soomaaliya oo kale ama Afrika oo kale oo hadduun bay salaadii ku tukadeen hadduun ba ha waa run waxay u tahay galinda waxay u tahay feed bay u tahay ha sax waan gartay barnaamijka si share garay dhamaantiin baad aad baan wada salaamayna Maxamed Baashi aad baan ku soo dhaweynayaa taasi marka ugu horeysa waxaan diraynaa ummadda intii ku geeriyootay xanuunkan coronavirus-ka intii dunida dacaladeeda ku geeriyootay ku dhimatay muslim ayaan waxaanu leenahay inaan la raajico Soomaalidii ku dhimatay UK London ku dhimatay UK dacaladeeda ku dhimatay taasi aad iyo aad balaaran baan u diraynaa waxaan leenahay inaan la raajico waqtigoodii waa dhamaaday qof walba maalin buu baxayaa saacadiisu maalin bay tahay iyagana tan baa loo qoray Maxamed Baashi adigu ma raacinaysaa tacsida in Allah intii muslina ku dhimatay masiibadan maanta adduunka ku sii fidaysa cudurkan saraha ah ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo inta bini'aadmiya muslim iyo gaalaba cudurka la legdamaysa la tacaalaysa ee uu haleelayna ilaaha weyne waaxidka waxaan uga baryaynaa in uu ka kiciyo oo caafimaad taamaho sareecana siiyo inta kale ee aadanaha ee adduunka guudkiisa ku nool ee gaaliya islaamba leh waxaan Allah uga baryaynaa inuu ka nabadgeliyo oo ummadiisa uu ka dulqaado culayskan xanuunkan walwalka iyo walbahaarka farabadan ku soo kordhiyay adduunka kii xoogga badnaa ee tunka weynaa iyo kii maxay tahay faqiirka ahaa aan waxba haysan iyo kii taajirka ahaa iyo kii madaxda ahaa iyo qof kasta oo aadamiyo hoosan ku neefla ah kan simay cudurkan simay ee safay ilaahay waxaanu ka baryaynaa
inuu ka badbaadiyo ummadiisa oo ka dulqaado kalsooni آمين آمين إن إلهي نقرأ نبتقليه يجنا إلهي كبتباديو أنتي لبطني إلهي نحرسي جنا كورابيو آمين محمد باشا سؤالي هنا وينو بلعبنا إن تدكونا يمكو حمريان لو بقول إيه صدن سي شير قرأي أو سي قيبيان إدلاي هدا ديدنتين يهدا أوغشين لبضبا halka waxaan u fadhinaa inaynu dood qaadano inaynu isfahano anigu wariyaan ka ahay aragtidaydu anigu waxaan aaminsanahay waa ii gaar ma soo dhex dhigayo laakiin maxamed baashe maanta waxaan u wareysanayaa asawiriyahan ayaan u wareysanayaa maxamed baashe dhaqdhaqaaqa mar kale iyo midnimo muxuu u taagan yahay manoo qeexi kartaa manoo sheegi kartaa wuxuu ka taagan yahay sida aanu kaltuunay ku qeexnay baaqii ugu horreeyey dhaqdhaqaaqan mar kale midnimo ka soo baxay 7 bishii la dhaaftay March sanadkan 2010 ururka mar kale midnimo waxa uu u taagan yahay isku soo dhaweynta iyo markaasi wax ka dhaxaysiinta iyo heshiisiinta ummadda Soomaalida ee walaalaha ah midnimadii 1960kii markii labadii gobol koonfurta iyo Talyaanigu markaasi gumaysanayay iyo geestii waqooyi Ingiriisku gumaysanayay ay isu yimaadeen wax wada yeesheen midnimada qaayaha lahayd taariikhiga ah ee ka burburtay maamulxoodu ka burburisay in aanu mar labaad dib u eegno oo la yayabo 30 sano kadib intii ay jirtay kala maqnaanta iyo kala qoqobka iyo haddii bahayna iyo burburka iyo qaranjabka Soomaalidu wixii dhacay in si guud iyo si gaaraba looga heshiiyo looga wada hadlo si gaar iyo si guud markaan leeyahay kaltuunay waxaan u jeedayay Somaliland gudaheeda waxyaabo badan baa burburkaasi ku keenay oo haddii bahayna iyo kala qaybsani kalsooni darro iyo markaas bulshadii oo xagga caqliga iyo fikirka iyo garaadka siyaasiga ah iyo wacyiga intaba ku kala fogaaday oo ku kala durkay taa mid lamid ah ayaa iyada laftirkeedu u gaar ah oo ka jirta dhinaca koonfurtana oo waynu ognahay oo dhinaca Somaliland baaba mararka qaar la qaatay oo dadku intay wax isugu yimaadeen wax ku heshiiyeen oo yabyabteen oo ay nabad ugu horeyso laakiin dhinaca koonfurta waxa ku sii baahayay dagaallo kala dabeecada oo sokeeye waxay u kala burbureen degmooyin iyo qabaa'il iyo waxyaalo lamid ah laakiin hadda waxa la gaaray xilligii burburada hoosena loo daweyn lahaa ee koonfur iyo waqooyiba ka jira isla mar ahaantaana loo abuuri lahaa dareen iyo garasho hoosta ka xariiqaysa in midnimadii Soomaaliyeed ee labada gobol ay tahay lagama maarmaan biyo kama dhibcaan ah marka la eego waxa gobolka ka jira iyo dhibaatooyinka Soomaalida dhexdeeda ka jira ee olana meesheedii waxba ku noqon weyday waxaa noo muuqata in haddii bahay idmayo ay jirto fursad weyn oo maanta fududeynaysa inay labada dhinac maxay idinku dhaliyay maxamed baashi waqti xaadirkan imika la taagan yahay haddaan ku weydiiyo maxaa idinku dhaliyay imika inay ku habboon tahay waqtigan imika inaa ku dhawaaqdaan ururkan mar kale iyo midnimo horta waxaad ogaataa mar walba inay jireen dad u taagan oo ka shaqaynaya oo aaminsan midnimada Soomaalidu dadkaasoo in badan oo kamid yahay waqooyigana ku nooshahay dadka reer koonfureedkana la odhan karo meel midnimo laga diidan yahay dee maynaan maqal oo midnimada Soomaaliyeed laga diidan yahay fikirka iyo farsamada waxa lagu kala duwanaado laakiin dhinaca koonfurta midnimadu waxay ahayd mar mid walba la isku raacsan yahay meesha midnimo la'aantu ka midnimada laga diidanaa dadka qaybo ka mid ka diidanayeen waxay ahaayeen Somaliland ama gobolada waqooyi imika sababta keentay markaa inaanu baaqan mar kale midnimo ifka keenaa waxa weeyaan waa momentum waxaa noo muuqday fursado waaweyn oo labada dhinacba wuxuu taraya oo midnimada ah haddii ay noqoto dhaqaalaha haddii ay noqoto maxay ahayd siyaasadda haddii ay noqoto difaaca haddii ay noqoto milgaha iyo haybadda
shakhsiga Soomaaliga leeyahay iyo baahida loo qabo dawlad dhexe oo dalka oo dhan maamusha oo midnimo qaran ah taa waxaan u leenahay waxaan ognahay in dhinaca koonfurta oo dagaal sokeeye ku baahan maanta ay dawladnimo ka soo socdo dawladnimadii inay ka soo unkamayso dadka badidoodu waxay ku lumaan maamul goboleedyada iyo mashaakilka kale ee waxa jirkiya ay ka wadaan dagaalada ah iyo ciidamada shisheeye ee jooga wuxuu xaqiiqooyin laakiin aan ka yar dhaxkalo maxamed baasho aan dhameeyo kaltuunay marka dhinaca koonfurta waxba ka soo unkamaya oo ka soo kacaya boorka iyo dambaska oo hay'adihii dawladnimo ah oo ay tusaalayaal badan caawa hadda waqti isiiso aan ka bixin karo dhinaca Soomaaliland wixii 30 sano la yabyabay hay'adaha dawladeed ahaa xukuumadaha baarlamaan ahaa axsaab siyaasi ahaa dastuur la iyo xeer lahaa wuxuba way sii saqiirayaan oo maalinta ka dambaysa waxay sii gelayaan digada tusaalayaal labada dhinac oo ka bixin kara hadii loo baahdo tusaalaha dadka bixisay danka ka waran Soomaaliland Somaliland waxa ka jira maxay tahay maamul xumo mar walba marka ka dambaysa siyaadaysay xukuumadda Muuse Biixi ma aha kalideed ka mas'uulka ahi waxyaalaha qaldan ee Somaliland ka jira waxyaalaha dawladihii ka horeeyay ay soo sameeyeen oo gaar ahaan xukuumaddii tan ka horeysay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo hay'adaha dawladeed markaasay nuguleyntooda iyo burburkooda iyo ay ku burbureen maamul xumo qaraabakiil musuqmaasuq hadii ay bahay mayo iyadoo oo koox yar markaa ay ka faa'iideystay ilaahay dhaqaale ummadda u sinan lahaa awoodii dawladeed ummadda maxay ahaytoy u qaybsanaan lahaa tan Muuse Biixi markay timina waxa looga baahnaa waxa inay wax ka qabato waayo madaxweynihii hore baxay wuxuu ahaa Kulmiye Muusena waa Kulmiye waa isku xisbi bay ahaayeen waxay ahayd inuu mayro wixii xisbigiisu eedo iyo gabood faliya galay siyaasadeed ee hay'adaha dawladda ka galay inuu Muuse uu hagaajiyo dhinaca uu qabto Muuse uu uga sii daray dhooqadii uu ugu yimi madaxtooyada ayuu dhooqa kale ku sii daray wuxuu sameeyay xukuumad aan tayo lahayn oo tayadeedu hooseyso oo laga maarmi lahaa wuxuu sameeyay maxay tahay wuxuu dhisay xukuumad dhinac ka haran inkastoo markii dambe uu xoogaa wax jafjafay haddana waxa abuurtay dictatoriyad qof qura gacantiisa ay wax ku urureen muddo 2 sanadood ka badan ayaa laysla garan la'yahay oo laysla meel dhig la'yahay in lagu heshiiyo guddi doorasho oo la qabto wax ka weyn ka dah waxyaabahaasi waa waxyaabaha Somaliland xageeda hay'adihii dawladeed iyo dawladnimadii ku keenay maxay ahaytoy mudarooyinka waaweyn kalsoonidii dadka bulshada dhexdeeda ayaa sii dhimanaysa tii xukuumadda lagu qabay iyo sharciga ayaa sii dhimanaysa maalin walba waxaynu arkaynaa dumar maxay ahayd xukuumaddii hore waxaa lagu eedeyn jiray inay meelihii danta guud ahayd ay ku gabood falaan oo ku takifalaan tan Muuse Biixi waxaynu ku aragnaa in haddii ay bahaydankeeda leeyahay dadkii maatida ahaa dhulkii ay 40 sanadood iyo 30 sanadood isku dhaleen ay yaaleen in la boobayo in xubnaha qoyskiisu iyagoo sita shaarkii Muuse Biixi ay dadkii ku dhacayaan oo ku boobayaan oo maatadii maalin walba dumar umula ah iyo caruur kaga oohinayaan oo ay kaga baroorinayaan oo aynu ognahay waxyaabahaas oo markaa waxyaaba fafaarayaal cusub oo muujinaya in jiritaanka Somaliland uu meel xun ku socdo aqoonsigii dibadda ayaa noqday hal bacaad lagu dhisay oo maanta wax la iska iloobay oo aan laga hadin oo aan la soo qaadin waxa ka sii daran Muuse Biixi waa shakhsi uu iska tagaya Somaliland way ka dambaynaysaa haddana ma aragnin rajo kale oo tuugada ku soo jirta oo Muuse dhaabi karta marka la eego axsaabta mucaaradka ah iyo qaab dhismeedkooda iyo sida ay hawlaha u wadaan taasina waa dhila kale محمد باشا أنا كويدي هل سؤال وكله إن كل وجهك في سومالي لأن فرق بدن ودنا وجد قاب دسمات كاي سومالي لأنه سعته إن هراء فكر كأنه مسكح هذا موجود شيء هراء موجود فكر يسي إن هذا منطقة مدة سومالية مركلة
aad midayso mise fikirkan wuxuu ahaa fikir imika muddo kooban kuga dhashay kaltuunay fikirkani fikir weligii bay jaygu ahaa tan iyo maalintii aan SNM ku biiray aan dhalinyarada ahaa ilaa maantida fikirka in ummadda Soomaaliyeed midnimadeedu ay tahay wax ka qiimo badan kale ka geeda fikirkaasi way ugu jiray dadkii baan kamid ahaa 18 May markii Burcalka ka dhawaaqay guunisutaanka ka hor yimid diiday hadlay idaacadda caamka ee BBC-da waa raadinaynaa barnaamijkii maalintaa baxay 24 May 1991 aan halkaa kaga BBC-da barnaamijkii maxay ila tahay aniga nin kale oo saaxiib nahay oo leeyahay Cabdi Faarax Saciid Juha reer Puntland oo marna wasiir ka noqday Puntland marna dowladda federaalka wasiir ka noqday labadeedaanu hayno anagoo break joogno oo jaamacad ku jira baanu arrintaa intaanu isla eegnay aanu isna SSDF buu ahaa aniguna SNM baan ahaa aanu isla eegnay in markaa aanu ka doodnay in doodaasi aanay goonistaagaasi u yahay midaan laga fiirsan mid lagu degdegay midaan la kurfayn idaacadda BBC-da ayaanu barnaamijkii maxay kula tahay labadayadu kaga qayb qaadanay dadkuna markaa ay ka falcelinayeen waa barnaamij aanu iminka raadinayno haddii BBC-da arkeefkeeda halka keydkeeda laga soo helo aanu dadka la soo wadaagi doono ilaa maalintaa ilaa maanta mar qura kuma qanacsanayn anigu kumana qancin in Soomaaliya kala gooyo in Soomaaliya kala maqnaato laakiin Somaliland duruuf baan markii dambe aragnay inay khasab tahay in meel laga baadi doono aanay jirin labadii gobol ee Hargeysa iyo Muqdisho in la isku soo celin karo oo dhinacii kale dagaalo sokeeyaa ku baahay way kala qubatay inkastoo waajib naga saaraa mar walba in dhibaatada laga soo qaado oo aan lagu daawan haddana waqtigii awooddu noogay saamaxayn waxay nagaga soo ururtay marka weelaha la helo ayaa lo'da la maalaa haddii dayaxa la waayo xidigaha lagu gudaa candaba waa xubin halkan Somaliland ee dadkii ku noolaa intoodii badnayd ay isla karteen markay ugu yaraato in nabadda ku wada noolaado oo la isneef ogolaado wixii ka jira yabyaba oo dhisa oo ka qayb qaata oo waajib iyo xilgudasho markaa joogtay bay nagu ahayd maanta se markii ay muuqatay dhinaca kale in wax ka soo ifayaan iyo isbeddelka gobolka ka dhacaya iyo in dowladnimadii Soomaaliya soo noqonayso hay'adihii dowladeed Muqdisho dhismayaan ciidamadii qaranka dhismayaan kuwii booliisku dhismayaan kuwii badda iyo cirku dhismayaan deyntii adduunka laga saamaxayo baankii adduunka iyo hay'adii IMF-ta iyo bankigii horumarinta Afrika iyo bankigii kale maxay tahay caalamul carab ama wadamada islaamka ahi ay maanta u soo jeesteen in Soomaaliya iyadoo la kaashanayo quwadaha waaweyn ee siyaasadda gobolka iyo adduunkaba qaadeeyay Mareykanka iyo Ingiriisku ugu horeeyaan in la dhiso dowlad Soomaaliyeed oo awood leh midnimadeedana laga shaqeeyo oo la odhan karo danihii duwalka siyaasadda adduunka qaadeeyay ee waaweyn danihii ay ka lahaayeen gobolka Geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya iyo danihii Soomaalidu lahayd ayaa isku soo dhawaaday oo aad moodaa inay soo midoobayaan halkaana Soomaalida fursad weyn baa ugu jirta oo haddii la helo maxay ahayd adduunyada oo ay ka go'an tahay in Soomaalida la mideeyo in Soomaalida dawlad la isku halayn karo oo maxay ahayd sharciga ku dhaqanta oo midnimo qaran ah oo dadku ku wada jiraan Soomaalida waa u dan caalamkan danaha meesha kalena waa u dan وهاك sababta Ethiopia doorka u ciyaaraysa waa doorka Ethiopia waxa ku nool 15 milyan oo qof baa ku nool waa wadan dhaqaalihiisu korayo isbedelo waaweyn ka socdaan badda dhereeran ee Soomaalida gacanka cadmeed ilaa iyo badweynta Hindiya 3,330 kiiloomitir aan laga faa'iideysanayn bay doonayaan inay waxna kala soo degaan waxna ka dhoofsadaan innaguna haddii dawlad wacan helo oo intaa u talisa ilaa iyo badda cas ilaa iyo badweynta Hindiya Soomaaliyeed oo milkiilay oo sharci ku dhaqmaysa oo haddii bahay mayo dadka halkaa ku wada nool wax ka dhaxeeyaan ay ku wada qaacsiin ku heshiiyaan inana fursado waaweyn ay ugu jiraan oo dhaqaale haddii si aynu taa jifno maanta oo aynu garan weyno waxaa dhici doonta in 10 sano soo socda aynu soo kala forxun arki doono oo laga qoomamoodo oo cid walba ka qoomamooto haddii si la karto waa fursado waaweyn baa ku jira midnimaduna waa ka koob sidaas haddaan midnimo la helin way dayacmayaan
si kale iyo sawir kale ay yeelanayaan si kale looga faa'iidaysan doonaayo fool xun oo innagana aan markaa fursadi inoogu jirin waa taa keenaysaa maanta inay laabta la soo kacdo oo maskaxda iyo uurkii ay jiiftay ee ku raagtay ay ka soo baxdo mar kale midnimo okay taa halkaas waan kusoo dhaafaynaa maxamed baashe muddo bilaa imika waxaa ku dhawaaqdeen urur la magac baxay MKM micnihiisu muxuu taagan yahay say anaga iyo bulshadaba ay u wada fahmaan MKM micnaheedu maxay tahay MKM waa mar kale midnimo waxa weeyaan haddii ay bahay idmayo midnimadii 60kii labada gobol qaateen Hargeysa iyo Muqdisho midnimadii 60kii labada gobol qaateen Muqdisho iyo Hargeysa ama waqooyi iyo koonfuri hay صح waxay ahayd wax taariikhi ah oo wacan okay oo macnaheedu laakiin macal aasif waan ka xumahay way burburtay waxaana burburiyay maamul xumo markaa keentay waxaan maanta jiray inuu ka hadlaynay absolutely markaa waxaan doonaynaa mar kale in midnimada dib boorka looga jafo oo loo soo nooleeyo dadka Soomaalidu kaltuunay dadka Soomaalida mar walba midnimadoodu ma dhimane way noolayd oo wax walba waxba ka dhexeeyay oo waxa ka dhexeeyay isku socodka oo waxa ka dhexeeyay ganacsiga oo waxa ka dhexeeyay oo aan marba ka burburin maxay hayto inay kala guursadaan inay isu socdaan inay ganacsi wada yeeshaan oo maanta wadagtoo shirkadda ganacsi ee weyn ee Hargeysa ka jirta Muqdisho way ka jirtaa haddii ay bahay idmayo dad reer waqooyi fara badan baa dib ugu noqday oo Muqdisho degay oo guryahoodii ku lahaa oo noloshoodii ku lahaa qaar badan oo kala maanta Hargeysa ku nool iyo Burciyo Boorami marhaba dadku ma kala go'in oo isku yaalay dhulkuna ma kala go'in dadkuna ma kala go'in laakiin nidaamkii siyaasiga ahaa dalalkii siyaasiga ahayd ayaa burburtay oo dowladnimadii ka dhaxaysay ma oran karnaa nin siyaasiya ama nin danleeya ama nin kursi raadinaya ayay waxaan idan ugu jirtaa inay ummaddu saan u kala fadhido laakiin shicibku mar walba way midaysan yihiin mar walba way isu tagaan mar walba way wada shaqaystaan shicibku mar walba may kala go'in laakiin kala go'an waxa raadinaya waxay tahay nin kursi raadinaya waa saam kula tahay xaggaaga walaal dhulkuna ma kala go'in oo waa la isu soconayay oo aniga kula hadlayaa passport la'aan intan Hargeysa kaga baxay baan ilaa iyo ayl oo ku taala badweynta Hindiya tagtay sax passport ma sidan warqad kale aqoonsiga ma sidan cidi ima weydiin qolada halka xadka Puntland iyo Somaliland joogtaa markayna arkay bas baan wali socon markayna kan gacantay noo taagayeen kuwa Somaliland kuwa Puntland gacantay noo taagayeen si noqodkii iyo soo noqodkiiba Puntland gudaheeda intaan joogay cidi yaa tahay ma oran ilaa ayl oo badweynta Hindiya ku taala baan kusoo dabaashay oo aan casaanyo badeed kasoo ugaarsaday oo ama aan kasoo jilaabto kasoo dabtay halkan biyaha qarqarkooda ayl waxaa ku dhammaadaa togan dheer ee la yidhahdo tog dheere Burcamara halkaa aylgu badda kaga daraa arsaayadu marka halka biyaha baddu halka biyaha badda iyo kuwa togu ay ku kulmayaan bay ku soo caaridaayo iska timaadaayo marka biyaha macaane toga bay ku dabaalataay oo ay ku raaxaysataa marka kuwa milix leh badda halkaasna suuxdii ka soo qabsanaynay dalku waa sidaa meel kale oo kastana waa sidaa dalku ma kala go'in dadkuna ma kala go'in oo kuwa wada ganacsanaya waa kuwa wada nool waa kuwa kala guursanaya waa xidid iyo rigaal iyo xunreys ku yaalyaan waa dad walaala ah waa dad wax walba ka dhexeeyaan laakiin imikadan lafteeda dhaqdhaqaaqa iyagan midnimo cadowga koowaad uu leeyahay waxa weeyaan kasoo horjeeda ee la dagaalamaya ee seefaha sitaa waa kooxo siyaasadeed oo dana gaara leh oo laga yaabo inay labada dhinac joogaan koonfurta iyo waqooyiga hubanti ahaan oo iyagu midnimada ay kala weyn tahay intooda gaarka ah markaa haddii ay maskab dowladeed hayaan haddii ay dana kale iyo maxay tahay siyaaro kale ay markaa dana kale ugu muuqdaan
koonfurta may jiraan yani siyaasiyiin koonfurta ah oo dana gaara iyagu loo kasoo horjeeda midnimada ama isukeenka ummadda Soomaaliyeed miyaa aragteen miyaa la kulanteen miyaad noo sheegi kartaa noo tataaban kartaa dhanka koonfurta waa tusaalahan kuu soo qaatay laakiin kama maqnaan karaan koonfurta inay jiraan shakhsiyaad iyagu kuraastooda ka jecel iyo mastabiyadooda ka jecel midnimada oo dhinacay doonana ka iman kara waqooyina ka iman kara kuwa waqooyiha uga badnaadaane ha ugu badnaan karaane haddii ay bahay idankeeda leeyahay kuwa badan oo reer koonfureedihii waxay ku fogan yihiin kuraasta iyo doorashooyinka la isku haysto oo kala weyn mararka qaarkood inay xoogga saaraan maxay ahayd tooy isku soo dhaweynta iyo ka shaqaynta midnimada ummadda waan gartay maxamed baashe haddaan dib ku yara celiyo adigu waxaad ku jirtay ururkii dhaqdhaqaaqa ummadda Soomaaliyeed ee loolan jiray SNM ururkaasi wuxuu ka taagnaa dhaqdhaqaaqa hadda ururka hadda noo qayaxdid because adigu halgamaa baad ahayd mujaahid baad ahayd waa dagaalamaysay mabda'a aad u dagaalamayseen iyo mabda'a aad u socoteen wuxuu ahaa haddaad noo yar qayaxdid fikirkii idinku jiray markaad dagaalamayseen waxyaabo fara badan bay ummadda isweydiinaysaa dad fara badan baa waxaan arkay markay SNM ay leeyihiin inay u qaataan SNMtu inay u dagaalamayso yacni inta yare haddii la yiraahdo ama aynu soo qadnay aad buu qaraariyay qabiilku la soo qaaday laakiinse isaaq ama heer sheekh isaaq ayay u dagaalamayeen marka ma saas ahaydeen oo adinku isaaq heer sheekh isaaq baa u dagaalamayseen mise ummadda Soomaaliyeed oo dhan laba in la kala saaro baa waxaan kartunay marka mawduucan oo aad u salbalaaran laga hadlayo ma in isaaq u badnaa jabhadda ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed oo aasaasiyaashiisu ay isaaq ahaayeen oo abaabulayaashiisu ay isaaq ahaayeen mise mabaadi'dii iyo qaab dhismeedkii ururka SNM marra si qaanuuni oo sharciya oo dastuurkiisa ku cad ugumay jirin maxay ahayd in gobollada waqooyi la gooyo kumana ay jirin qaab dhismeedkiisuna uma samaysnayn si loo gooyo gobollada waqooyi oo waxay ka dhisnaayeen SNM oo isla ku lahaayeen oo dad badan oo reer koonfureed ka dagaalamayeen jiida mustaxiil ku waajahan beledweyne iyo gobolka Hiiraan jiida doolow iyo buur aaminow iyo suufti ee ku waajahan dhinaca gobollada Baay Bakool iyo Gedo golaha dhexe SNM iyo golaha fulinta iyo golaha joogtada ah intaba waxaa ku jiray dad badan oo reer koonfureed ah iyo dad kale oo reer waqooyi ah oo aan isaaq ahayn oo dadka kale waqooyiga degaa ah haddii ay noqoto harti haddii ay noqoto maxay ahayd tooy samaroon hadday noqoto ciise marka qabyaalada loo eegayo litacaarafuun si fahamku u soo dhawaado ayaynu reeraha u magacaabaynaa marka dhinaca koonfurtana beelaha koonfurta degoo dhan baa ku jiray laga bilaabo majeerteen ilaa hawiye ilaa dir ilaa reer Baay iyo Bakool ayaa ka mid ahaa oo aan shakhsiyaad badan oo la wada garanayo macruufay ku jiray golaha gudoomiye ku-xigeen mararka qaarkood waxaa ka ahaa SNM cali maxamed cosoble cali wardiigle oo ahaa siyaasi caana ilaahay ha u naxariistay oo reer Muqdisho ah waxaa ka mid ahaa maxay ahayd tooy cali hagarey oo wasiiradii 60kii ka mid ahaa oo reer koonfureed ahaa waxaa ka mid ah niman badan oo khaliif sheekh axmed waxaan leeyahay khaliif dheere ka mid yahay uu ka mid yahay maxay ahayd tooy cabdinaasir sheekh xasan sheekh axmed uu ka mid yahay iraad uu ka mid yahay maxamed duqow rag badan cabdikaruur ilaahay naxariistii jannaha ha ka waraabiye cabdikaruur iyo ninka la yiraahdo cabdinaasir sheekh axmed iyo khaliif raggii halgankaa ku geeriyooday SNM kawskeeda u geeriyooday oo wada reer koonfureed ah waxaan xasuustaa islow baan xasuustaa oo reer Puntland oo dagaal ka dhacay Balidhiig 4 ku dhintay isagoo oo waliba dagaalka hogaamiyayaashoodii ka mid ahaa marka dadkaas oo dhammi umay dhimanayn oo umay dagaalamayn in waqooyi la gooyay wax qadiyad isaaq leeyahay
laakiin propaganda loo dhigay oo la faafiyey oo sawirka hore abaabulkii iyo asaaska ka soo jeeda oo haddii ay bahayd mayo fikir SNMta dhexdeeda ka jiray oo ahayd madaxda qaarkood qabeen dad caadiina la qabeen oo ahayd waqooyiga waa lagu dulmiyey midnimadii oo haddii ay tahay awood qaybsigii iyo haddii ay tahay wixii horumar ay lahaayeen midnimada waa lagu dulmiyey oo wasiiradii iyo wakaaladihii iyo wasaaradihii waa lagu qadiyay taasi oo doodi ka furan tahay daftarkeeda marka adiga ka maxamed anigu maxamed baashaan habeenna waxaan ka mid ahay dadkaan habeenna ku seexan maalinna kusoo toosin in waddanka Soomaaliya la kala gooyo habeenna kumaan seexan habeenna kumaan soo toosin kumana fakirin sida aan kuu sheegay markii la gooyayna waan ka horin markii dambana khasab bay ahayd inaan ummaddeeda la shaqeeyo oo markii dhinacii kale koonfurta waxba ka soo naasacadaan waayeen laakiin dadku si aanay u marin habaabi in Somaliland la gooyo duruufaa keenay marka laga tago tabashadaa hore waxaa keenay oo dadka aan isaa qaban idhaahnee ku dhiirigeliyey in arrintaasi dhacdo dagaalkii weynaaya dhacay aan kala sooc lahayn maatada iyo maxay ahayto iyo askartii SNM dagaalamaysay aan lagu kala soocin diyaaradihii xoogga dalka Soomaaliyeed lagu garaacay magaalada Hargeysa oo caasimadii labaad ee Soomaaliya ahayd si kala sooc la'aan madaafiicdii goobta lagu hogaaminayay iyadoo halka umar iyo carag ka dhashay ayaa haddana markii taliskii Maxamed Siyaad Barre dhacay 26 January 1991 manifesto nimankii la baxay oo aan aaminsanay nimanka gefka ugu weyn Soomaalida ka galay ay magaalada Muqdisho ka sameeyeen xukuumad ama dawlad aanay SNM kala tashan SNM oo xoog midnimadaasi waxay curad u ahayd Soomaali inteeda kale sax tigii Soomaali weynimo ayay horseed u ahaayeen markii midnimadaasi burburtay dawaatii ay sii fogaadeen kuwii kale way sii fogaadeen oo meel burbura kuma soo hiran karaan annagu waxaanu himiladayada koowaad waxa weeye in dadka reer waqooyiga marka hore meel la isugu keeno wax badan baa dhexdooda yaala iyagu ay is-uurxaadaan iyagu ay wada hadlaan tala yeeshaan haddii qorshe yeeshaan ku saraysan midnimo waa gartay dhinaca koonfurtana aanu ka helno jaal sida iyadoo kale u fikiraya oo isaguna midnimada ka soo shaqeeya ilaan xamarba ilaan koonfurba inta waqooyi taalle in kasii daran baa taalle waan gartay marka adinka ujeedadiinu iyo himiladiinu marka waan ku wada kaltuunaya labadaa markaanu isla helno Soomaaliya iyo Somaliland ama waqooyi iyo koonfur ee dawlad macnale laga sameeyo ee dawlad Soomaaliyeed oo milgale oo awood leh oo qurux laga sameeyo loo wada dhan yahay oo labada gobolkii Soomaalida kale ee maqan ee maanta qaarkood dawladaha madaxa bannaan yihiin qaarkoodna ay wadamada kale ka midka yihiin way ku soo hiran karaan markay ugu yaraato waxay midnimadaasi noqon kartaa mid difaac u noqota xuquuqda siyaasadeed iyo jiritaan dadka Soomaaliyeed ee meelaha kale ku jira ama Kenya ha ku jiraan ama Ethiopia ha ku jiraan ama Djibouti horta maanta lagu gudaaman yahay ha noqotee marka Eritrea ay gacanta u qaadayso halkan Ethiopia ay afka soo kala hayso waxay noqon kartaa waxay midnimadaasi noqon kartaa waxay noqon kartaa midnimadaasi mid Soomaalida kalena Soomaalida kalena ay ku soo hirato milka ku yeelato isla markaana lagu xaq dhowro oo xuquuqahooda siyaasiga ah iyo sharci intaba markaa lagu tixgeliyay noqon doontaa ama buurho ama buur ku tirsan oo ay doonto Soomaalidu markay buur noqotay labadaas midoobaan kuwa kalena way ku tirsan karaan haddii aanay uga imanoo iyagu markaa intay go'aan gaadhaan aanay la midoobin okay taa halka baan ku dhaafaynaa maxamed baashe ururkan yaa kugula midaysan intaa tihiin dunida dacaladeeda xagee ka kala joogtaan dadka ma faaleyn kartaa oo ay dad fara badan oo waxa jira doonaya inay kugu soo biiraan oo doonaya inay kula soo xiriiraan inta la eegtiin ururkanna horta kaltuun waxa weeye
horta run ahaantii hadal waa run kama reeye markii hore waxaanu ahayn group aad u kooban oo yar baanu ahayn intii muddo sanad iyo goob aan arrinta waanu gurfeynaynay waanu ka shaqaynaynay waanu daraysaynay annagana tiradeeda ugaan u yaraynay oo si arrintu aanay nooga baahin baanu group yar oo kooban oo is afgaran kara somalilandna kasoo wada jeeda oo isu dheelitiran ayaanu ahayn oo qaarkoodna xubnaha qaara muqdisho iyo hargeysa joogaan qaara halkan london joogaan baanu ahayn oo aanu ku wada shaqaynaynay muddadaa sanadkii googo ah hadda markii aanu ku dhawaaqnay soomaalida ku maahmaahdaa ninkii ilaahay geel la damcay dabayshaa u rimisa ninkii ilaahay aanu la damcinna bakaylaha ka jebiya hashii dhammayd buu bakayluhu ka jebinaya haddaanu ilaahay la damcin haddii uu ilaahay la damcana awr baarqababa u baahan maaya dabayshaa geela u riminaysa marka sida imika annaga dhaqaaqayaganay ku socday iyo saamaynta aanu yeelanay mahmaahdaas baa dhigeeda oo mahmaahdaasaa ku saameelan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba waxaanu ka helay taageero iyo diidmo labadaba markaad qiyaastay taageeradii iyo diidmadii keebada la kartaaba daraaso ayaanu wadnaa aanu soo saarayno haddii alla idmo oo ilaahay naga ogolaado 8 bisha oo rag researchers ama wax daraaseeye oo aqoon lahi ay ku howlan yihiin oo ay kaga jawaabayaan su-aashaas oo markaa sidee falcelintii laga bixiyey mar kale midnimo waa sidee iyada oo daraasada laba dhinac ay tahay mid laga qaaday mid mid ahayd maxay ahayd survey online oo internetka ah iyo mid maxay ahayd toy wax alla wixii ka falceliyey ama diidmaha kaga falceliyaan ama ha kaga falceliyaan taageere iyadana database loo sameeyey oo lagu hubiyey oo markaa iyadoo graafkeedii wadata oo percentagekeedii wadata soo bixi doonta dhowaan ka hor dhici maayo oo daraasadaas taa ka jawaabi doonta laakiin waxaan ogahay in waddanka gudihiisa oo magaalada burco iyo hargeysa ugu horeeyaan aan taageeradii ugu ballaadhnayd ka helay dadka markii hore midnimo doonka ahaa ee ku noolaa boorame ee ku noolaa laascaanood iyaguna taageero ayay noo muujiyeen aad u weyn walaalahayaga koonfurta waxay noo muujiyeen taageero weyn dad kaloo badan oo soomaaliyeed oo qaarkood jigjiga ku nool yihiin waxay noo muujiyeen iyo jabuuti waxay noo muujiyeen taageero weyn ereygan midnimo ayaa soo jiidanaya ereygan midnimo ayaa muujinaya in sheel loo qabo oo loo baahday marka la isba bardhigo 60 sannadood kadib in midnimadii mar kale iyada oo carcaraheeda qabta ay laabta la soo kacdo oo aanay dhiman dareenka ugu badan ay heshay waqooyi bay ka heshay ama dad hore midnimada u aqoonsanaayo la jiifay ama qaar cadaystay oo maxay tahay midnimada rabay ha noqdaan ama qaar imika rajadooda u arka in midnimo ku jirto walo dhalinyarada ugu badan tahay markii la waayey meel loo dhaqaajiyo اعتراف maxay ahayd toy اعتراafkii soo oodmay u beenoobay haddii aabahaydu iyo isla mar ahaantaana arrimihii gudaha iyo dhaqaalihii iyo kaabayaashii dhaqaale iyo waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo shaqadii iyo wax waliba dadkii ku adkaadeen oo noloshu ku xumaatay isla markaana ay arki waayeen rajo ay ku hirtaan iyo ilays u baxaa kan u muuqday wuxuu noqday kaamidnimada maxamed baashe aan su-aalku weydiiyo dad fara badan oo kasoo jeeda somaliland ama aynu rahno gobolada waqooyi baan rahna say yacni dadku yaqaanaanba ayaa waxay u arkayaan cadaawad ama cadow ku qaadaya ama moodaya inaad mataqaana kasoo horjeedid oo aad xumaantooda aad wadid ma la kulantay ma aragtay dad caynka yani u fakeraya ama aaminsan inay yani aad cadaawad kula dhaqantay adoo nasteexadoodii wada walaal horta taasi la yaab ma leh kaltuune
waayo aragti kastoo cusubi fakir kastoo cusubi wuu la kulmaa ka horimaadka noocana taariikhda adduunka inaynu ka baranayno inoo caddaynaysaa meel fog inagoo diinta islaamka haddaynu soo qaaday markii ay soo ifbaxday jasiiradda carbeed ay kasoo ifbaxday 1440 sano xilli hadda laga joogo nabi maxamed la soo saaray calayhi salaatu wasalaam waynu ogeyn iyadoo xaqa oo subxaanahu watacaala ilaahay kownkan abuuray soo dejiyey oo allahuma salli wabaarik calaa nabi maxamed basharkiisa uu ka doortay uu ku soo dejiyey diinta ayaynu ogeyn wixii cay aflagaado cambaarayn isircay haddii eebbahay idmayo ilaa la gaadhay in gacanta loola tago oo dhiig laga keeno oo magaaladii uu diinta kusoo degtay uu joogay uu ka cararo oo uu ka haajiro oo asxaabtii qaar ay ka haajiraan waddankoodii jasiiraddii carbeed ay ku noolaayeen ay africa u haajiraan ayaynu ognahay marka waxaa iskale aragti cusaybnimadaa iskale cusaybnimada waayo dadku waxay doonayaan wixii hore ay u barteen wixii hore dhegtoodu maqli jirtay wixii hore ay la qabsadeen oo ay iyagu markaa u arkaan wax saxa oo iyo mututuul ah maxay ahayd toy kanaan saxa oo wixii kale cusbiba waa waxun waa cadow annagu somaliland cadow ma nihin waxaanu aaminsanahay kuwa caydaa iyo aflagaadadaa iyo waxaa nala dhacaya inaanu in badan oo ka mida uga oo aanu maxay ahayd toy wada jirkeeda iyo iyadoo walaalaahoo is haysataa ay walaalahooda koonfureed u tagaan oo wax wada yeeshaan oo fursadaha danta somaliland baanu ka dhex aragnaa midnimada dantii somaliland baan goonistaagii aanu ka weynay dantii ummadda somaliland shacabka somaliland dantoodii iyo mustaqbalkoodii ayaa nooga dhex muuqan waayey somaliland waxaanu u aragnay iskuul saaqid ah iskuulladu markuu isagoo iskuulku ardaygu saaqid ah marka iskuulkii wuu jiraa ogow oo arday baa ka aflaxaysaa laakiin ardaygii saaqidkahaa unbaa dee meeshaa ku dhacaya laakiin balka waran haddii iskuulkuba saaqid noqdo laftiisu oo iskuulka laftiisu midaan waxba soo saareen oo khasaare ay yahay oo saaqid ah somaliland gooni isku taageedu iskuulkaa saaqidkaabuu noogu muuqday waxaa noo muuqatay markaa in la abuuri karo iskuul aan saaqid ahayn laakiin arday saaqidihii dhigan karto marka ogow la jaajirto waa wacanta iskuulku waa iskuul wacan arday wacan buu soo saarayaa dhinaca kale ardaydii saaqdiyo xariif way noqon kartaa markaa maadaama hadduu iskuulku iskuul wacan yahay waan gartay hadduu se iskuulku saaqid yahay oo la-aad yahay oo agaraadan yahay dee arday soo saari maayo waan gartay marka midnimada waxaanu u aragnay marka caqliga san iyo awoodda iyo kartida iyo aqoonta labada dhinac laysu keeno waqooyi iyo koonfur inay noqon karto iskuul wacan oo ardayda dhigataa qaarra iska saaqidi karaan qaarra gudbi karaan qaarra ay intelligent iyo xafaan noqon karaan oo ay meel isla gaari karaan sax waan gartay maxamed baashe badanaa ummadda ku nool waqooyi iyo ummadda ku nool koonfur waxa dhex taala kalsooni darro aad iyo aad u weyn baa dhex taala oo soo taxnayd ilaa iyo 1960gii ilaa iyo imika dhibaatooyin fara badan oo soo dhex maray hadday dagaal noqoto hadday noqoto kursi doon hadday noqoto xukun hadday noqoto waxyaaba fara badan oo kasoo dhex dhacay ayaa waxay ku kala dhex riday kalsooni darro inaan dadkii aanay saaminin adinka ururkiinan aymanka samayseen maxaa ka qaban kartaan kalsooni darro sida ku cad himiladayada iyo ujeedooyinkayaga dadkana aanu la wadaagnay sax waxaanu doonaynaa mar horena aan wax ka yara tiraaxay waxaanu doonaynaa inta koonfur iyo waqooyi dhex taallaa koonfurna way dhex taallaa waqooyina way dhex taallaa kala gaargaar ahaan
kalsooni darrada iyo dhabarkoo la isku soo jeediyo cuqdada iyo shakiga waqooyi laftiisa wuu ka jiraa in indhaha laga qarsada maaha haddii xal la doonayo marka hore waa in waqooyi qodaxda laga guraa dhex taalla iyo shilingabaashayda iyo kalsooni darrada haddii la odhan jiray beelaha darafyada kalsooni darre iyo beesha dhexaad kalsooni darro dhex taalla oo ama wax isku haya hoos bay uga degtay oo waa ta ilaantaye sidii basasha noqotay maanta hargeysa basasha lagu wada dhibayo beesha dhexe lafteedu ay kalsoonideedii ay haadaanta ka laalaado iyagu quladu somaliland kala sheeganayaan kala dhawaysanayaan kala durkisanayaan marka walaal koonfurtana intaa in leeg baa dhex taalo dadka reer koonfureedka kugoodu dee malaa'ig maaha oo sidimudhuq wuxoodu maaha waxaa dhex yaala khilaaf kaa somaliland iyo kalsooni darro kaa somaliland mararka qaarkood ka khatar badan oo maamul goboleedki ah oo qabyaalad iyo reero magacyadooda kalena adkaan waayey isla markaana heshiin waayey ayaa koonfurtana taala marka waxaa loo baahan yahay labada dhinacba inay gaarkooda qodaxda dhex taala iyagoo iskaashanaya waayo wixii baa isku mid ah waxna waa la wada doonayaa in qodaxdaa la guro marka qodaxdaa dhinac walba laga soo guro laysa soo laab xaadho in waqooyi iyo koonfur wax badan baa ay kala tirsanayaan marka iyadana kaana loo baaraandego oo qodxanta laga guro oo wixii dhacay laga heshiiyo oo la iska dhaahiyo oo labada dhinac maxay ahaytoy la iska raali geliyo oo la isugu cudur daaro oo laga heshiiyo oo dadka la isku soo dhaweeyo cuqdadaa meesha laga saarayo kalsooni darrada markaas bay ummaddu wax dhisan kartaa ay ku kalsoon tahay ay wada leedahay ay wada ilaashanayso oo loo baahan yahay in laga faa'iidaysto khaladaadkii aynu hore u galnay hadday noqoto 60kii hadday noqoto gooni isutaaggii hadday noqoto qoladii manifesto gefkii ay galeen ay afduubeen qarannimadii soomaaliyeed iyagoo aan dadkii kala tashan xaqa u lahaa in lagala tashado waxyaabahaas oo dhan waxay u baahan yihiin in dib loo eego taariikh laga dhigo oo wax laga barto si aanay dib u soo noqon qaran soomaaliyeed oo mid ah oo haybad leh oo la wada leeyahay oo la iska dhex daawado oo horumar samaynaya oo ummadda noloshiisa wax ka bedelaya oo caalamka la macaamilaya oo dadka soomaaliyeed waa dad maskax badan laakiin maskax badnaantooda waxay ku xidhan tahay hadba halka ay u jeediyaan haddii ay xagga xumaanta ula kacaanna waxaanaynu iminka arkaynaa dhacaya haddii xagga horumarka ay ula kacaanna wixii 7 sane maxamed siyaad barre waddanka ka dhacay baa dhacaya iyo horumarkii iyo sidii marka ummaddu ay isugu tiirsatay ee ay horumarka u gaadhay kabayaasha dhaqaale iyo adeegyada bulsho iyo maxay ahayd midnimadooda iyo wadajirkooda iyo aynu weerarka ku maxay Soomaalidu xitaa ay dowladdii ugu weyneyd maxay ahayd Afrika ee ugu guulsanayd ee ugu da'da weyneyd adduunku waxaynu ku samaynay ay yaabeen markii oo ilaa ruush iyo kuuba iyo quwadihi waaweyn ay soo gurmadeen waa la ogaa 77 marka midnimaduna waxaasay leedahay oo dee loo meel dayo oo aan dagaaluna iska qaadin oo aan xoogga la muqunina caqliga san aad looga shaqaysiiyo okay badanaa waxaanu maqalnaa maxamed baashow marka la soo hadal qaado midnimo iyo marka la soo hadal qaado maxay tahay ummadda wanaageed marka la soo hadal qaado waxaynu aragnay oo in fara badan aynu aragnay ummad fara badan oo isla markiiba dacwadooda soo dhiganaysa wixii nagu dhacay xasuuqi nagu dhacay dhibaatada nagu dhacday dadkii naga laayay caynkan oo aad iyo aad u cabanaya wax kale oo soo raaca ma arag laakiin waxaan arkay cabasho aad iyo aad u fara badan oo mar walba la soo dhigayo dad bana la ka laayay waana la xasuuqay waxyaabahaas oo kale sideeba meesha looga qaadi karaa oo dadka looga bogtiin karaa waayo dadda ugu horeysa weyn ee ii muuqataa waxay tahay ay ku dacwoodaan heer Somaliland mar walba oo la soo hadal qaado ummadda Soomaaliyeed wax la soo dhigayaa waana la xasuuqay walaal waxa weeyaan waxa dhexdeena ka dhacay wax soo jireena oo adduunka oo dhan ka soo dhacay weeye Yurubtan joogno dagaalaha 30 sano markii qowmiyaduhu abuurmayeen Yurub ayaa ka dhacay dhexdooda oo dumarka iyo carruurta iyo dadka da'da ay waaweyn cidna aan la daafin la kala dhacayo weliba oo 30 sanadood buu ka soconayay koone
colaadda Jarmalka iyo Faransiisku halkii gaadhay waa ognahay haddana maanta xiriirka ka dhexeeya iyo sida ay uga bogsadeen waa ognahay ilaa ay yeesheen maxay ahayd inkastoo iyagu qarama yihiin iyo qowmiyada yihiin inagu qowmiyad qulaynu nahay waa kasii sahlan marka dhinac laga eego arrinteenu waanay ka adkaan kartaa waanay ka fududaan kartaa oo dadka sokeeyihii markay wax dhex maraan had iyo gooraale hore uma kala bogsadaan wuxuu maxay ahayd kalsooni darrada iyo cuqadku waa soo noqnoqdaa haddii ay bahayid mayo afrikada aynu joogno waxyaabahaas oo kale ka dhacay wadamo fara badan ka dhacay waa jirtaa for example Rwanda oo kale baynu soo qaadan karnaa iyadoo wixii ogeydaynu ka dhacay in xalay daliil laga noqday oo maanta ay marayaan in lagu tiriyo wadamada Afrika ugu horeeya South Africa cadaankii tirada yaraa iyo dadkii madowga ahaa dagaalkii ka dhexeeyay baynu ognahay halkuu maanta ku dambeeyay baynu ognahay inay wax wada yeesheen oo iska saamaxeen oo iskaali geliyeen oo wadan South Africa la yiraahdo wada leeyihiin dadka Soomaalida ee qoyska ah waa qoys anu Soomaalida qoys baan oranayaa waa qoys ballaadho tarmay wixii dhex maray way ka heshiin karaan wixii ka dhex dhacay wiska raali gelin karaan imika way bilaabantay oo kii farmaajo kasoo hadalladu ay ka mid yihiin maxay haytoy raali gelinta iyo isu cudurdaarka iyo ay markii ay sabab musabixi kusoo kulmeen oo muqdisho kusoo noqday waa kii sida wacan u hadlayay musabixi laftiisu dadka badan waxay aaminsan yihiin maxamed baasho halka ka yara dhex kale farmaajo sidii loo baahnaa lagu hadal qodobka kaltunay musabixi ku dhiisu maanta siduu shalay ahaa maaha siduu shalay ahaa maahe cadaawadda iyo dagaalku ka muuqday kasoo kakamaya maxay ahaytoy dubaaqiisa iyo dahrigiisa iyo dareenkiisa toonkanuu ku hadla toonkanuu maanta si kaluu u hadlaa madaxweyne farmaajo odhan jiray ma yidhaahdo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo yidhaahdaa soo arki maysid magaca maxamed cabdilaahi buu yidhaahdaa waxaasoo dhani fariin bay diraysaa in isku soo dhawaansho iman karaabay diraysaa waa kuwan aad sabab isku kaliyeystay waa kan ra'iisul wasaaruhu la joogay waxbaa lagu heshiiyey waxaasi waa wuxuu labada dhinacba u dana baa la oran karaa oo wada hadalladaasi ka mid yihiin oo ay muhiim ugu yihiin wada hadalladu waa miftaaxa laga gelayo in la heshiiyo in wax la wada yeesho in midnimo la gaadho in maxay ahaytoy arrimuhu ay qaataan maxay ahaytoy geedi socodkooda aan wada hadallo waa aan heshiino dareena haddii la qaato oo qolo waliba halkan isku dhijinaysay muqaddasnimada fog laga soo dhawaado oo la wada hadlo oo la isku qanciyo maxaa dana waxaynu aragnay maxaa dana oo aynan maantuun dul joogin oo ka calaacalin wixii daraaya ina soo maray macna samayn mayso dadkaa la laayay in badan oo kamid a xaqdaraa lagu laayay way dhici kartaa dee qof kastoo la dilay xaqdarro laguma dilay qaar baa xaq lagu dilo ninka nin dilay kow kaga siiyey loo dilay dee xaq baa loo dilay jeelasha ku bixay dadka laynayay laakiin dadkii kale la xasuuqayay gaboodfarka lagu samaynayay ee la gumaadayay bartamaha Soomaaliya gobolada maanta Puntland ka mid yihiin ku noolaa markii dambe u soo gudbay maxay ahayd waqooyiga dawladdii iyo awooddii maxamed siyaad barre ee la wada lahaa ee dadku lahaa lagu gumaadayay lagu leynayay iyo kuwii dambe markii dambe jabhaduhu ay qabiilka u leynayeen ama sida kale u leynayeen wax badan baa dhacay waxaasoo dhan in laga heshiiyo la isaga garaabo wax laga barto taariikh noqdaan ayaa loo baahan yahay laakiin garawshiinyaha iyo isla garashada iyo isla fahamka iyo iska raaligelinta ayaa wax walba ka weyn inagu adiga kaltuuna iyo aniga iyo inta mar kale midnimo faraha badan mar kale midnimo taageertay kamida iyo inta ka soo horjeeda maanta ma bedeli karaan wixii dhacay 60kii ama 90kii ama 88kii oo waa dhacdooyin dhamaaday laakiin
laakiin waxaynu bedeli karaa sida aynu u aragno meesaynu dhacdooyinkaa u aragno sida aynu dhacdooyinkaa u aragno iyo fikirka aynu ka qaadana baynu bedeli karaa oo aynu ka dhigi karaa dhinac wacan halkuu iminka dhinaca xun inaga qafilmay way dhaceene aan ka heshiina baa iman kartaa inta nool aan u talino ee dayacan maanta maxay ahayd leelaysa ee horumarka aan kasbane 30 sanadood ninkii 30 jirkee gurigii hooyadii weli fadhiye aan shaqo helin ee aan maanta rajo kale arkayn aan rajo u abuuro aan rajo u abuuro aan fursado u abuuro shaqo abuur u abuuro waxbarasho tayaal u abuuro yaa caafimaad waxbarasho gaadiid layd dawo haddii arki maysid shaqo aan ka fikirno xooga saaro halkaynu hoonku inagaga dhigay aynu kaliya ku qaflanahay wixii dhacay 60kii ama wixii dhacay maxay ahayd 80kii ama wixii dhacay 90kii iyo 90kii iyo sanadihii ka dambeeyay marka waxaan baasho waxa leedahay wixii dhacay ma soo celin karnaa waxa soo socda aan uga talinayo future-ka waxa wixii dhacay waa taariikh aan ka fikirno sidii aynu uga faa'iideysan lahayn si aan mar labaad inoogu dhicin aan ka heshiino aan iska xaal marino aan iskaga garawno aan haddii abahayd ma isaga cudur daaro aynu ka talino waxa maanta jooga iyo waxa soo socda taasay xoogga la saaro ay tahay oo aan la nuugnaan oo aan 30 sano dambe inaga lumin qaabkan aynu noolay ama 10 sano 30 sano ma gaari karo hadii soo noolana waa baabaaynaay oo sawir kale yeelanayo farxo tobanka soo socda hadaynu sida si ahanaba farxo soo baxay tamaan ugu aaminsanahay oo ii muuqata farxo dadku inay la arkayaan iyo kale hadii ay waxa ii muuqda 10 sano kadib 2030ka hadii aynu sidan ku sii jiro inaynu farxumo iyo sawir farxo oo liita oo aynan ka soo kaban karin inuu gaari karo absolutely way muuqataa hadda animka laga tashan aad iyo aad su-aasha kale aan ku weydiinayo maxamed baashe dabcan waxaynu ka hadlaynaa imika waa gobolladii waqooyi aynu ka hadlaynaa iyo midnimadii ummadda soomaaliyeed gobollada waqooyi si ay u yaalaan waxay yidhahdeen waanu goosanay oo gooni isku taag ayaanu qaadanay oo dowlad gaar ah ayaanu nahay bay yidhahdeen markaas shicibka ku nool gobollada waqooyi gobollo fara badan oo aan ogolayn ayaa jira dad fara badan oo aan ogolayn ayaa jira hata ahaatee lagu hayo khasab iyo xuurta lagu hayo lagu leeyahay waxaanu aaminsanahay aan nala aaminaysa haddii laga qaado afti shicibka ku nool somaliland oo dhan aftidaasi maxay kula tahay sidee bay soo bixi lahayd fafaalihii haddaad imika maskaxdaada dib ugu noqotid maxay soo bixi lahayd ma waxay soo bixi lahayd 100% maya ma rabno midno mise waxay soo bixi lahayd 100% haawan rabno walaal horta mar walba way jireen dad badan oo reer somaliland ama reer waqooyiga oo aan ku qanacsanayn midnimada waxaa leeyahay gooni isu taaga dad dhan oo gobollada midnimada qaba oo run ah oo gobolka sool oo kale sanaag bari oo kale awdal oo kale gobollada dhexe ilaa bilowgii waxaa ka jiray dareen xooggan oo gooni isu taagdiida hakala lakabyo kala sarsareeya ha yeesho laakiin dareenkaasi mar walba uu jiray oo dhaqdhaqaaqiyo hubaysan dhaqdhaqaaqiyo siyaasadeed ayaynu ognahay oo mar haba ka dhammaan ilaa maantada yomul haada aynu joogno hadday noqoto Maakhir State hadday noqoto Awdal State hadday noqoto Khaatume State dadka kale ee iyagu beesha dhexaa ku dhowdu maalinta ka dambaysa iimaanka ay ku qabaan Somaliland iyo gooni isu taageedu wuu sii yaraanayay xaqiiqan maanta halkii ugu hooseysay buu iimaankaasi maraya haddii maanta daraasad fiican laga sameeyo dadka midnimadoonka ah ee Somaliland ku nool ama ka soo jeeda Somaliland iyo inta gooni isu taag rabtaa waxaan aaminsanahay inay isdhoweynayaan baan aaminsanahay haddaanay midnimadoonku badan waayo dadka ku nool dhalinyaray u badan yihiin sax
waxa mustaqbalkoodu lumayna waa dhalinyaro waa sagaashankii iyo wixii ka dambeeyey iyo sagaashanka wixii ka hor bay dhasheen boqolkiiba 60 ilaa 70 baa lagu qiyaasay adigu ilaa 60 dheh dhalinyaradaas u badan cidda mustaqbalkoodii maanta haawanayo ku hungoobay gooni isu taagu waa dhalinyarada waa dhalinyaradii noqon lahayd dhakhaatiirta waa dhalinyaradii noqon lahayd duuliyayaasha diyaaradeed waa dhalinyaradii noqon lahayd saraakiisha waa dhalinyaradii noqon lahayd maxay ahayd hogaamiyayaasha waa dhalinyaradii noqon lahayd maxay ahayd mufakiriinta waa dhalinyaradii wax soo saarka iyo hal abuurka weyn caan baxay yeelan lahayd dhowrkii sanaba ay soo bixi lahaayeen 20 iyo 30 dhalinyaro ahoo tis qaado oo magacoodu gebi dhulka Soomaalida oo dhan uu hareeyo oo magacyadooda la barto oo qaar ay yihiin agwaano oo ay qaar yihiin dhakhaatiir oo ay qaar yihiin saraakiil oo ay qaar yihiin duuliyayaal diyaaradeed oo ay qaarkood yihiin maxay ahayd maamul siyaasadeed iyo dhaqaale iyo dhaqan iyo ay soo barteen hogaamiyayaal u muuqdaan siyaasadeed dalka bari hogaamin dooneen kuwaasa maanta fara badan kuwaasana maanta fahmi kara oo dareemaya gooni isu taagu inuu dhigay meel maxay ahayd wada loo socdaa aanay garan karin xagee loo socdaa oo ay ku shaqala yihiin oo waxbarashada tayadeedii liidato oo hadday wax bartaan shaqooyinka ay heli lahaayeen xitaa kii number 1 ka galay iyo kii ugu hooseeyey loo qaraabo kiilayo oo ninkii ugu sareeyay iskuulka ama jaamacadda ugu heer sareeyay uu arkayo kii ka hooseeyay ama saaqidayba oo xafiis soo fadhiyo oo maxay kursi isku ruxaya Somaliland mugdi waxaa la geliyay aqoontii la geliyay mugdi aad u xun baa la geliyay aqoontii oo dadkii wax bartay way dayacan yihiin dadkii wax qoolka ay birmageyada marka dadka noocaas haddii maanta afti laga qaado oo la kala dooransiiyo midnimo iyo gooni isu taag marka dadka wax bartay aqoonta la wax leedahay waxba looma diro lagama guro laakiin aqoonta wax lagu fulo Soomaaliya waxa loo baahan yahay Soomaaliya waxa looga baahan yahay nin tuuga oo wax dhaca oo qaraabakiil sameeya oo haddii ay bahay ma hantida qaranka ku takifala oo madaxda dabarka u xoqa oo aan ka hor iman karin oo aan challenge gareyn karin oo aan samaha ka hadli karin oo musuqmaasuq jecel oo qaraabakiil jecel oo lagu danfushado kuwaasaa laga jecel yahay dadka sirriigta aqoonta leh wax curin kara wax dhalin kara dowladnimada hagaajin kara nolosha wax ku soo biirin kara maxay ahayd maxay hal abuurka waxaa laga jecel yahay kaan hal abuur lahayn laakiin tuuganimada shacabka u tuma ayaa laga jecel yahay taasaa laga jecel yahay ilaahay wadada toosana tusaan lana waanu ducaynayna su-aashii ugu dambeysay ee aan doonaya inaan kula qaybsado maxamed baashe waxay tahay waxyaabaha kale aad doonaysa inaad ku darsatidna dabcan waan kusii deynayaa inaad adigu aad ku darsatid waxyaabaha kaa dhex kooxaya su-aalaha doonaysa inaad mataqaanaa haddaad doonaysa inaad anaga su-aalana weydiisan waadna weydiin kartaa dabcan laakiin se su-aasha ugu dambeysay aan ku doonaya waxa weeyaan lacagta Somaliland oo dad aad iyo aad u fara badan runtii ay ila qaybsadeen i weydiiyeen ideada lacagta waad maqlaysaa soo maa lacag baa lagu sameeyaa Somaliland maxamed baashow lacagtaa xagga lagu soo sameeyo yaa soo sameeya xaggay ka sharci garaysan tahay xagee baa laga aqoonsan yahay maxay tahay lacagtani sameeyanay sharci darro ahayn lacag forgery inta guryaha dhexdooda inta lagu daawacdo in dadka lacagtoodii lagaga iibsado dadka la siiyo layaabo lacag wax ku iibsado meenay kula ahayn maxay kula tahay bal horta adiga ideadaada guud baan doonaya inaan maqlo ay dadkuna inala wadaagaan in badan bay soo noqon kartay lacagtaasi walaal arrintaasi arrin adag maaha arrin lagu aad waqti badan loogu lumiyana maaha waxaynu ognahay Somaliland inaanay aqoonsi ka haysan beesha caalamka waxaynu ognahay in baasaboorkii Soomaaliya lagu dhoofo aynan baasaboor sharci oo caalamka oo aynu ku tegi karaa inaan lahayn waxaynu ognahay shahaadooyinkeena iyo qofka doonaya maanta inuu fiise qaato inaanu
aanay jirin maxay haytooyeen geedigelin iyo dariiq habraaca uu u maro oo aan ahayn kaa dee Soomaaliya marka waxaa aqoonsiga waxyaabaha aqoonsigana ayay lacagtuna ka mid tahay aqoonsiga loo doonayo Somaliland aqoonsi baa loo doonayaa lacagteeda aqoonsi baa loo doonayaa baasaboorka ay sameeyeen aan meel lagu tegin aqoonsi baa loo doonayaa haddii ay bahay idmayo waxyaabahaas oo dhami waa waxyaabaha ka maqan Somaliland ee mar kale midnimo ay raadinayso oo ah in wuxuu lacagta Somaliland gudaheeda uu mooyee meel kale ka shaqeysaa ma jirto marka miyaanay qiyaano ahayn lacag adduunka laga aqoonsan yahay walaal ma odhanayna taasoo waxayna u odhanayn dadkani waa inay noolaadaan dadkani waa in wax geddislay noqon maayaan iminka qarnigan 21aad oo ii doori ma dhacayso sonkor iigu doori bariisay xukuumadihii meesha yimi gaar ahaan maxamed xaaji ibrahim cigaal uu ku ammaanaa ilaahay naxariista jannaha ka waraabiya inuu arrintan sameeyo waayo waxay ahayd daruuriyaad bay ahayd dadkaasi inay helaan wax ay ku ganacsadaan dhexdooda isu gudbiyaan qiimo leh shilinka caadiga ah ee Soomaaliya Maxamed Baashi marka walaal aynu kala saaro lacag Soomaaliyeed oo la adeegsadaa ma jirin oo diinbaar bay ahayd oo tiibciye laga bedelay gobolada bariga oo meel sharci kama ahayn dawladii dhacday la dhacday marka lacagta Soomaaliya ma sharci dawlad kale oo tijaasniina Soomaaliya may iman marka Somaliland waxay talaabadaasi waxaan ugu arkaa inay ahayd talaabooyinkii lagu soo meel gaaray سهلي ganacsiga سهلي wada macaamilka سهلي in dalku Somaliland ay shaqayso ay u ekaato maxay tahay adduunkana wuxuu lahaa cilaaqaad ilaahay de facto sharciga bay la lahaayeen oo waxa ka maqnaa maxay ahayd sharcigii rasmiga ah ee aqoonsiga ah oo ka maqnaa Somaliland ma ahayn wax adduunka ka go'doosan oo aan cid la macaamilin Ingiriisi la macaamilaysay Mareykan bay la macaamilaysay EU bay la macaamilaysay wadamada Afrika la macaamilaysay marka waxa weeye wadan sidan oo kale yihiin wuxuu u baahan yahay yaan la aqoonsan wixii dalnahaan sidoo kale inuu ka fikiro samaystaa waxay ahayd talaabo togan oo wacan bay ahayd dhinaca kale aan fadhino musuqmaasuq sida lacagta loo mitisgareeyay iyo sida loo samaystay taasi waa mawduuc kale laakiin lacagta ahaanteedu waxay ahayd waan anigu u aaminsanahay wax baahiye keentay oo raggii ku dhaqaaqayna ee hirgeliyeyna markaa ay ku saxnaayeen oo ku qumanaayeen bay ahayd oo dicilka lagama keenine lacag baa la ururiyey fara badan oo ganacsatada laga ururiyey oo ay ku deeqeen oo bixiyeen oo malaayiin maxay intaasoo milyan oo dollar ah oo hawsha lagu fulinayey la'aanteedna dollarna maynan adeegsaneen oo suurtagal may ahaateen lacagtana maynan adeegsaneen tii Soomaaliyana expire bay ahayd oo dawladeedii way dhacday oo giimbaar bay ahayd oo waynu ognahay oo meelahay kusii dambeysay burciyo waxaa ka mid ahaa gobolada bariga waa tii أحمد محمد سيناي خليه وماشي يمي كوشتك قبتي وبدلية تنسى ولا نكو بدلي وخيابها صدمي وحبيت تدخل روشو ده فهمتي نراها في واحد نبدأ نقول ذلني ونبدأ حدي عن العكس في شنو دقالها الله عورين لما يرالين كرين سيدي حمر كده عليه سحر باكر على هاي ماشى وخيابها سوا وحيابته بن وفهمتي عن الحين دليل وحا كم مكان oo meesha yaala cidsaafkii ka weynaa lacagta ka dhigi lahaa baasaboorka ka dhigi lahaa shahaada ka dhigi lahaa fiisa ka dhigi lahaa kuwaas oo dhan baa wada maqan lacagtuna kuwaasay ka mid tahay anagu midnimo mar kale dadka Somaliland baan ka shaqaynaynaa wixii wacanay Somaliland ay kasbato ama ay haysato in laga burburiyo ma jeclin inay ka xumaadaan ma jeclin in laga xumeeyo ma jeclin in suulka laga afufo ma jeclin iyadoo Somaliland hoosaa u qurux badan inteeda qurux badan ay qurux badan tahay xumaanteedana caloosha ku shidataa oo wada fad ku jecelahay inaanu walaalahayaga koonfureed la midoobno oo waxaanu ka wada hadalnay oo qorshe leh oo tala leh oo nidaam leh oo xeer leh oo xaagaan leh inaan la galno laakiin Somaliland burburtay oo maxay tahay dhiigu ka daayo oo labada socotaa aanay jirin oo iska wada horjeeda oo ma doonayno inaanu aragno
وكحررينا أو كلا دوانيسا أو كلا عرريسا أو دبرك بدونينا نوعدنا ونتبعيسا متشعلين سومالان كيف كذا ذلك وقويين يسايستانوا ولا لوغانوا ولا له كونفرون تكان يقول تكبر يقول كاتعدن يقول تجار سكويجين يقول أنا كلا ففرين يقول أنا كلا قايبين أيام فجينا وكشقينا وجعلنا ولا له كونفرنا أن وشينا وكعصرنا كان لا إلهيان أنا جو حنش عليه وذي شكوده أنا جو حنش عليه وذي جوده أنا جو حنش عليه إنه وعنادان أنا وهالكي أنا اسمه وخذيش halkan aan ka tegay halkan aan wada anigu Soomaaliland ka tagi maayo kama tegay anigu Soomaaliland sax sida ugu tagi maayo Soomaaliland waxaan doonayaa danteedaan anigu meel ka arkay danteedaan meel ka muuqatay ninka danteeda meel kale iga tusaa hay tuso hayla doodo ha yimaado hayla sheekaysto anigu danta Soomaaliland oo istaag uma arko waa in saddex sanadood oo iskaari laakiin sanadka imika sanadkiisa doonad bay geli doontaa waxa weeyaan maalinba maanta ka dambaysa xaqiiqada inoo soo baxaysa waxa weeyaan inay Somaliland goonistaaggeedu wax sii shaqaynaya ahayn waa cadceed asas joogta way dhacaysa liiqaynaysa intaanay dhicin cadceedaas aan dawanku ku yeelin in iyada oo jirto hirwaqooyo dadku ay isku dhow yihiin oo inta yihiin iskaga sii dhawaadeen oo kalsooniyadu isku soo dhawaato dib loo soo dhaliyo dib loo yabyabay inay walaalahood koonfur hor fadhiisato markaa oo ay midnimo كوضح هذا تاسان فرصة إيه فرصة Somaliland وفرصة هي Soomaaliya بقى نوعها وهذه Soomaaliya Somaliland يسكت كان مشاكلات بدون بحليسمية مشاكلات بدون كونفور هيستاح حليسمية وقوية هيستاح حليسمية وهيو عمرك يسكت كان مبدأ آثار يسوي من أي يردوا أي كرق دوريسو شو بسرق دوريسو wax badan buu xalilaya halka imika diyaaradaha kacaya ay joog hoose ku duwayaan oo dhulka u yeeyo anytime buur ku dhuftaan ama dhagax ku dhuftaan ama geed shiran ay suurtagal ka tahay hay flight ka sare ee hawada maraya Soomaali magacaas oo kula wax badan xalilaya midnimo intaasa wax badan xalilaya dhinaca koonfurta iyo dhinaca waqooyiga haddii si loo meeldayayo loo galo oo anaga baaqayagu waxa weeye midnimaan mar kale doonaya aan u meeldayo ereyga muhiimkii waa doonista midnimada iyo u meeldayga labadaa iyo inta ka dhaxaysa macno weyn baa ku fadhiya buug baa laga qori karaa kaltuunay buug weyn absolutely marka walaal aniga say ugu muuqataa waa sidaa taa lacagtana halkaas ku dhaafaya iyo faallada kale ka dhigaysa aan ku leeyahay salaad halkaas aan ku dhaafay in kasto dad fara badan ay ka faaloonayeen lahaayeen sixir bararka waxa keenay waa iyada laakiin si fiican bad igu sharaxday si fiican bad igu sheegtay alla yaasig maxamed baashe ugu dambeyntii ururkiinan mar kale iyo midnimo maxaad kaga tagaysaa ummadda xagee baa lagala soo xidhiidhayaa yaa maxay tahay idin ah mas'uul sare adigu ku furantahay ku fahnay horta dhaqdhaqaaqan ay dhalinyaro fara badan ay la soo xidhiidhay baa jirto oo doonaysa inay kula soo xidhiidhaan dhalinyaro fara badan doonaya inay kula soo xidhiidhaan anytime diyaar baan u nahay aniga iyo kooxda kale ee markale midnimaba wixii xiriira waa soo dhaweynaynaa waxaad haysaa kaltunay xiriirkan daymka baa aynu ku wada soconaynu iska helay hadduu noqdo Facebooka haddii uu noqdo telefoonka haddii uu noqdo WhatsAppka intaba waad soo siin kartaa ka iga horjeeday iyo ka taageersan ama ka naga horjeeday iyo kana taageersan labaduba kalsoon baan u soo dhaweynaynaa waayo kana taageersan waa taageersan yahay kanaga duwan inaan isqalcinayo wada hadalaayo aanan iscaayin baanu diyaar u nahay oo aanan isfalaagayn isna xagxagayn aanu si عقلي سن كسر سن وبدا دودنا واسكو قنعينو صح marka barka Facebook ana waxaan ku leenahay page la yiraahdo markale midnimo صح ka qubiisu meel xiriirka noo soo gudbinaysa baa jirta imika waxaan gacanta ku haynaa website-kii oo maalmahan soo socda soo bixi iman doona daayaha bulshada ka qubiisa meel xiriirku saamaxay laga soo xiriiro saamaxaysa baan u yeelaynaa waxaa lagu qori karaa maqaalada dhismeed
haddii ay mar kale midnimo ka horjeedaan iyo haddii ay taageerayaanba oo aanu daabici doono waxaa lagu daabici doonaa ujeedooyinka iyo howlgalka iyo himilooyinka ama higsiga dhaqdhaqaaqa mar kale midnimo oo faahfaahsan wixii kasoo baxaa ururka mar kale midnimo waxay ku yaalaan imikaba oo laga akhrisan karaa oo lagala socon karaa pageka mar kale midnimo ee facebooka dadku waa dadkayagii cadaawadi nooma dhaxayso xitaa kanaga horjeeda cadow ma aragno waxaanu jeclaan lahay inay iska daayaan qofaynta iyo cayda iyo aflagaadada iyo sabti weerarka oo waxaanu jeclay in xoogaa ilbaxnimada kor loo yara qaado oo la ilbaxo oo la doodo oo laga doodo arrimaha qodobada ujeedooyinka mabda'a iyo waxyaabaha laga doodo oo laga koro tafaasiriqa iyo cayda iyo shaksi weerarka iyo aflagaadada iyo dadkaasi jawaab laga heli maayaan macalaasif waan ka xumay jawaab laga heli maayaan hadday baraha bulshada nagala soo xidhiidhaan ama pageka wax kusoo qoraan ama facebookyada gaarkaa wax kusoo qoraan ama telefoon noo soo diraan ama maxay haytoy whatsapp noo soo diraan jawaab laga heli maayaan waayo dee anagu wax lagu caytamo ma hayna iyo wax lagu aflagaadooday waxaanu haynaa dood baanu haynaa doodna waxaa lagu gudbaa dood kale fikir iyo aragti baanu haynaa aragti iyo fikirna waxaa lagu gudbaa arrin iyo aragti kale saasaa wax lagu kala faa'iidaystaayo markaa qanaacaduna iyo isfahamkuna kusoo dhawaan karaa ama dee lagu kala sid qaadi karaa lagu kala tegi karaa taasina waa taa dadka waxaan ugu baaqayaa inta maanta ina daawanaysay halkan inagula jirta iyo inta codkani gaari doono in miyir iyo haddii abahayidmayo maskaxda laga shaqaysiiyo oo maskaxda wax la weydiiyo oo dhacdooyinka socdaiyo siday u socdaan iyo halkay ku jeedaan iyo halkay ka yimaadeen si miir qabta la isugu dayay in la fahmo ee aan caadifad lagu kicin caadifadii inta badan waxba ma hagaagtay waxbay qirtaa inaan qalbiga laga hadalo maskaxda laga hadlo halkii cali gurey baan ku habaqsanayaa oo aan beri dhaweyto ka helay hadal yuri oo ahaa dadka qaar maskaxday ka fikiraan qaarraa qalbigu waa jacayl oo waa rabitaan soko oo aan mabaadi iyo xaaladda markaa ku hortaagan iyo waxaad saad u aragtiyo saad u jeceshahay ama u neceb tahay ku saabsan maskaxduna waxay ka fikirtaa wax fog oo mustaqbal fog leh oo markaa waxtar leh oo wixii khasaare ku jira ay iska reebayso wixii foolxumo ku jira ay iska reebayso laakiin qalbigu waxaa marka hele jacayl ama nacayb buu noqdaayo waa ku qarxi marka taana in laga feejinaadaa wayga talo maskaxda laga fikero aan qalbigu wuxuu jecel yahay la qalbiga laga fikri aan qalbiga la siin lagu keliyay fikirka sax in maskaxda loo gudbiyo maskaxda kala shiisho oo markaa kala reebto oo taada kale xilligiisii maaha u yarkaadi kani hadduu habboon yahay maxay haytoy dheh ama ku dhaqaaq kani haddii abahayidmayo khasaarihiisa badan ee iska reeb oo meeshaba ka saar kanuu ka faa'iido badan yahay soo horaysii kan loo adeeg maskaxdu saasay ku kala shiishaa ay u kala jaandaysaa maskaxdu qalbigu si hawshaa ma leh qalbigu waa ku arka qalbigu waa jacayl iyo nacayb waa qac iyo qac haye haddii abahayidmayo markaa maanta doodaha iyo kala duwanaantu waa xadaarad ilbaxnimooyinka iyo xadaaradaha adduunka kusoo kordhiyey horumar badan magaalada london ee aynu ku noolnahay waxaa ku wada nool intaasoo quruumood oo kala midaba oo kala diina oo kala dhaqana oo kala afa oo haddii abahayidmayo haddana iswada tixgeliya wada nool aan qofsaa u eegin shuruuc iyo habraacyo ku kala soconaya waxa weeyaan waa intaasoo milyan oo qof oo aan midna mid lamida lahayn
midna mid la diin ahayn midna mid la dhaqan ahayn midna la sinji iyo sawrac ahayn kala afafa kala maxay ahaytoy xitaa kala cunto ah haddana kala labisa haddana way iswada ixtiraamayaan oo wada arkaysayo iyagoo kala duwanaanshahaasi jiraaba haddana habsami socodkii noloshu aanay taasi waxba yeelaynin dhinaca kale cajiskeeda ay qurxinayso horumarinayso intaa kala duwanaanshaha ku jirta caqliyo kala duwan aqoon kala duwan waayo aragnimo kala duwan karti iyo hufnaan kala duwan ayay haddana leeyihiin oo ku wada socdaan oo noloshay ku qurxinayaan inagoo qoysa oo waxba aanay waxba ahayn oo soomaaliba yar tahay oo intay tahay aynu ognahay ayaynu haddana maxay ahaytoy aynu kala duwanaanshaheena kale ee aragtiyeed uu noqday waxaan laysu keeni karayno ama aan isqabanba karayn oo qof walbatiisa uu ka dhiganayo qumana qoorta u sugan qumana qoorta u sugan annagu xitaa aniga kula hadlaya waxaan aqoonsanahay inaan dhaliilo leeyahay waxaan aqoonsanahay inaan khalada samaynayo waxaan aqoonsanahay inaan hogseeg iyo maxay ahaytoy leeyahay maxay ahaytoy iimo intii qof aadamii lahaan jiray ee lagu yiqiinay in badan oo kamid ahi inay igu lamaanto maalin walba waxaan bartaa khaladaa shalaysanay inaan dib ka ogaadaa oo haddaan maanta qaladkaa maalintan sameynaya ku dhacayay aan ogaan lahaa aanan sameeyeen soo arki maysi dadkuna waa wada caynka ambiyadii ilaahay soo diray uu doortay ayaa khaldamayay iyagoo wixii ku socdaa oo markaa ilaahay kusoo dejinayay aayad qur'aan inaad soo qabatid ma khaldama qalad inay jiraan wuu diidi lahaa maadaamuu doortay oo bulshadii kala soo dhexay laakiin wuxuu ugu daynayaa casharo uu dhigayo kuwa ambiyada ka dambeeya inay gartaan qaladkooda inay gartaan inay khaldami karaan maadaama ambiyadiiba khaldamayeen oo aayad qur'aan lagu saxayey oo waxii saxayey waxay ahayd wax eebe asaawujale ee uu ugu talagalay in qurumaha dambe iyo jiilasha dambe ay ogaadaan mar haddii nebigii mukhtaarka ahaayee la doortaybaa uu qaldamayo aayad lagu saxayey qofka aadamigiina ee kale ka dambeeyaa sunnaha nolosha intuu uuman yahay uu qaldami doono waxa saxayaana ay tahay xeerarka la dhigtay iyo aqoonta iyo qabitaanada iyo qaayasoorada waxa saxaya ee ka duwaya maxay hayto dee qaladkii uu galay maxaa raaligelinta maxaa loo sameeyey in la israali geliyo in la israali geliyo la kala qaato waxaa loo sameeyey waxaa la aqoonsan yahay in khalad dhacayo in qof walba markuu aqoonsado inuu qaldamay qofka kale uu raali geliyo ayaa loo sameeyey uu raali geliyo bal kan waran iyadoo la yaho laisma raali gelinayo marka la khaldamo dhibkeeda qabtaa maxaa dhici ama marka la khaldamo in la saxo dibkeeda leedahay wax laga barto qalabka waxaa laga barta dhacaya waxaa la yidhahdaa qof baan qaldamin weligii qof baan qaldamin waa qofka aan waxba samaynayn meel iska quusuda ee cala ku daa ayaan qaldamin kaasi ma qaldamada laanna waxba muu samayn de waa qofka yani aan wax dhaqdhaqaaqa samaynin meeluna iska fadhiya haba yaraatee qofka waxba samayn kaasi ma qaldamo sax laakiin qof bini-aadanahoo noolaha oo soconayo qof kasta oo bini-aadmiyoo qaldama inuu qaldamaa waa sunno nololeed inuu saxaana waa sunno kale oo kii lagu hagaajinayay waan gartaa si wanaagsan waxaan filayaa inaynu in badan hadalnay aad iyo aad dadka soomaalidu walow hadalka ay dad ay yihiin hadlaaya oo intaasoo maanta qoraal aanay cidiba akrideen maraa dadku way gaadheen aynu nasino haltune may aad iyo aad baad u mahadsan tahay maxamed baashe aad baan kugu mahad celinayaa enough information iyo intaan ku weydiinayo su-aalo oo enough waan ku weydiiyey guul baan idin rajaynayaa adiga iyo tiimkiina wada shaqaynayaaba insha allah waxay la tahay dhalinyaro fara badan oo halkan daawanaysa iyo qaar sii daawan doonaaba in ay kula soo xidhiidhi doonaan kuwa kaasoo horjeeda iyo kuwa kula socda oo kugu raacsiisan qofkaaga labadaba inay kula soo xidhiidhaan laakiin waxaan idinka waani gelinaynaa haddii aad doonaysaan inaad hadashaan inaad si fiican oo akhlaaq leh oo edab leh u doodaan ama hadalkiina usoo gudbisataan sida qofka kalena kuu qadariyo oo kuu ixtiraamo uu si qurux badan isaguna kuugu jawaabo maxamed baashe aad baad u mahadsan tahay waa ku mahad celinayaa thank you very much baan ku leeyahay aad baad kaltuun cabdilaahi u mahadsan tahay adiga iyo inta waktiga ina siisay ee ina dhegaysatay oo kulliba falcelintooda dee aynu ugu tegi doono halkan pagekaaga waa laydin qiimeynaya aadna waan ugu mahadnaqayaa rabbi runtii adiga iyo iyagaba
aan kusoo gabagabaysano in ilaahay cudurka sabaha ah ee adduunka ka jira inta maanta ka badbaaday weli aanu asiibin inuu ka badbaadiyo inta u jiiftana gaaliya islaam baa inuu ka kiciyo intii dhimatay muslimiinana alla u naxariisto ducadaa inaynu kusoo celcelinaayo nebigana aad loogu salliya allahuma salli wasallim wabaarik caleyh way wacan tahay xilli adag baynu ku jiraa xilli ummadii culays weyne haysta baynu ku jiraa xilli dadkii la-aanaya baynu ku jiraa waa in laysku naxariistaa waa in naxariis badan la muujiyaa waa in alla u dhawaansho badan la muujiyaa waa in qofba waxa uu qofka kale ku tari karo uu ku taraa aan si wada ducayno aan iswada saamaxno haddii eebahay idmayo doodu way noo furan آمين 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 الله ينقع بو دعاء والشيخ محمد باشي نوصل جديد أبا ما حسنته مشيخ واتا شيخ وحا وهو ناكسن بقف لهذا اللي بشاقه ما لكن هو درجل قالوا ما قالين كرتوني لما يري دوري ما ونقول نعبها ين لا يقول يرو واي كميت هاي أقويهن واي كميت هاي شيخ واي كميت هاي أدوان أنا waxaan soo aqaanayo kaliya oo aan darajadiisa haystaayo isleeyahay xaq baad u leedahay waa qoraa inta kaloo dhan xaq uma lihi qoraa buugaag waa qoraad inta kale darajooyinka kaloo dhan xaq uma lihi aqoonyahan baan laygu yeeli karin shiikh baan laygu yeeli karin abwaan baan laygu yeeli karin waayo maaha xuquuqaan leeyahay maaha darajo aan leeyahay maaha nin markaa wax beena huwaday baan ahay intaba kolleyba waad leedahay oo bili-aadamku kuguma yeedhan waxaanad ahayn maxamed baashe laakiinse haddaad tiri qoraa oo kaliyaan aqbalaya haddaad tiri qoraaga laftigiisu ciyaar maaha moogte anigu waxaan ku qanacsanahay qoraanimadeeda oo qurax absolutely mar kale iyo midnimana waxay ila tahay inaad kasoo qori doontid buug cusub oo insha allah hor leh hadii la kacdoonka cusub weli waa ilmo yaroo aan xitaa isroogii gaarin marka uu gaashaan qaaday haddii uu dee insha allah bismillahi karim wuu guulaysane markaasunbaa dee laisku dayi karaa haddii la noolaado in buug laga qoray laakiin maanta weli waa ilmo yaroo dhashayoo aan xitaa weli isrogin إن شاء الله لكن بوجا محمد باشو كان عسان بوجا سلا قرو تاريخ مرة الباي تاجن تاي وربح كودا عينات سي قرتي كيت سي دقتي ميان عين هادو توله markaad waqtiga aad doonaysid inaad soo saartay aad gaadhidna aad isku wada dooridid taal meen buugagta loo qoran mise waa sidaa weey waan xogtii buuga haysaa marka hore ruqsataatay dhacdo walba markay dhacdo inaad qortid aad keed ka dhigtid waa laba mid inaad markaaba dee marka wax dhacayaan ba buug tahay oo aad ruqsato iyo in ay ka hor dhaceen xilli aadan adiguba dee jirin ama adoo jiraba aadan goobjoog ka ahayn taana dee wax baaritaan baa lagu sameeyaayo waxaa la daba galaa dadkii waxyaabaha ugu inta daloolay iyo wixii laga qoray صح إن شاء الله مرة بوق نقفر جنطة هدي لها هذا عاد بكون سلام يا محمد باشا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله عاد بقوا mahadsantihiin wuxuu ahaa barnaamijkeeni Sunday baxaya afarta galabnimo iyo mar kale iyo midnimo dad fara badan waxaan arkay halkan igu leey soo qabo arkayay sanad ku sheegay waxaan ku yiri Sunday walba qof baan ugu talagalay barnaamijkan ku waraysto qofkii doonaya in waraysi laga qaado oo aan waraysto oo doonaya midnimada ama mar kale iyo midnimo ama ka soo horjeed ama maxay tahay ku raacsiisno hadda doonaysid in aad nagala qayb qaadatid liiska isku soo dar magacaaga soo qor ina soo gudbi yani waxyaabaha aad doonaysid inaad markaa ka hadashid anigu mar walba meesha waxaan idin fadhiyaa ka soo horjeeda iyo ka raacsiisan labadaba inaan waraysto barnaamijkan wuxuu furan yahay mar kale iyo midnimo mar aan ku soo celinaya mar labaad haddii aad ka soo horjeedid waad ii soo diran kartaa magacaaga waana ku waraysan karaa haddii aad raacsiisan tahayna waan ku waraysan karaa labadaba anigu halkan baan u fadhiyaa insha allah haddii ilaa yiraahdo aadna waan idin salaamayaa dhammaantiin bikayr far badan waan idinkaga tegayaa de waana ammaano alla ilayo Sundayda dambe insha allah afarta soona diyaar garooba liiska waxaan idin soo warkayga kusoo qorayaa qofka doonaya in uu waraysi ka qaado Sundayda soo socda magacaaga soo qor dabeetana waan wada hadlaynaa kabacdina waxaad ii sheegaysaa
mabduucaagu wuxuu yahay waxyaabaha aad ka hadlaysid aad baan idin salaamayaa ka raacsiisan iyo kaan raacsisnayn labadaba anagu waanu jecelnahay ummad soomaaliyeed weeyaan midnaba anagu xumaan uma qabno ma necmin laakiin waxaanu raadinaynaa waxay tahay solution iyo ummadda soomaaliyeed dantoodii ayaanu raadinaynaa halkan ka raadinaynaa marka ha u qaadanina in cid goonisi loo necab yahay in si cid gooniya loo ataagayo laakiin mid baan anigu necaba waxaan necaba waxooyan dulmiga mar walbana dulmiga waa kasoo horjeedaa hadday aragtaan anoo qof dusha ka saarnoo eryanaya waxaan ku eryanaya qofka waxooyan waa dulmigana aad baan u necabay ilaahayna dulmiga wuu necab yahay qof bili-aadana meesha lagu dulmiyaad aragtid dulmi in lagu samaynayana inaad kasoo wada horjeesataan oo muujisanayaan aad iyo aad u jecelahay qof dadka necab ma ihi cidna ma necbi cidna kama soo horjeedo laakiin waxaan aad iyo aad u necabahay dulmiga wax layaad oo necbay haddaan kugu dareemo inaad dulmi samaynaysid inaad dadka dulmiyaysid inaad xumaan wadid ama ku necab waan kaa soo horjeedaa laakiinse qaasi ahaan ciidan cid u eryanaya cid gooni u necabahayo ciidan ataagayo ciidan ma jirto taa meesha ka saara aad baan idin salaamaya dhammaantiin bakheer far badan baan idin rajeynaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu